Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu ah Xasan Ismaaciil Maxamuud oona ka soo jeedinaya cashar Iqra Education Program. Casharkeena ugu horeeya isagoo noqon doona Computer Hardware General Knowledge. Computer Hardware General Knowledge-kaas waxaan ka dhigan tahay inaan faahno kombyutarka waxyaalaha uu ka wada dhigan yahay marka hore. Kadib baan as a specific usii dhex geli doonaa every single part. Markaa su-aasheena ugu horeysa waxay noqonaysaa aadna isweydiinaysid computer for what? Computerka maxaa loo rabaa? For store information. Daatadaada inaad maadaragtay ku shubato computerka. Ha ku shubatidee waa computerkee ma like personal information waxaad ku shuban kartaa your own PC maaha. Your own PC dana waxay ka dhigan tahay shaqsi ahaan PC daad u leedahay adigu. PC daas waxay u soo gaaban tahay personal computer. Marka ay noqoto sharing information. Sharing information waxay oo kaliya tahay waa marka company-ga aad ugu shaqeynayso. Hadda haddii aan kala saarno for student iyo for business etc means way sii socdaan for communication for everything waxyaalo fara badan baa sii jira. Laakiin meemka yaga waxa weeji aan awoodda saarayna waa student-ga. Business-kana waan u soo laami doonaa iyagana waan ka warhaynaa. Haya hadda aan isla eegno let's see for student iyo for others. Let's compare baan sameynaynaa. Ta ugu horeysa student-ga waxa uu sameynayo waa develop software, develop application, more problem. Markaad eegayso develop software kan kale waxa weeji kuwa kale markaad eegayso waa not anymore. Taas waxay ka dhigan tahay inuu maadaragtay qofka kale ee dadka kale waxay noqon karaan inuu u baahan yahay keliyata computerka inuu ku jahteeyo inuu daatoon yar ku save garaysto. Laakiin ardayga wuxuu sameynayaa inuu computerka waxyaalo ku soo kordhiyo. Kuwan dadkan kalena way sameyn karaan for business-kaas waxaa dhici karta inay software develop ay noqdaan. Laakiin waxaan rabnaa muhiimiyaddeeda ardayga computerka markuu iibsanayo sababta uu iibsanayo waa intan bay ku soo kooban tahay inuu software ku sameeyo, inuu ku develop garayo applicationo, inuu problemyada helo uu solve garayo, inuu iibsado computerka rakhiiska ah. Sababtan rakhiiska ugu daranayna waxa weeji waayo more aad wax ku sameynayso cilado fara badan baa kaala kulmaya. Ciladahaas inay waxa ku habboon inuu computer iska rakhiis noqdo waayo waxa tahay weli barbarad. Arday means still waa more mistake buu sameynayaa. More mistake-gana waxa u fiican computerada rakhiiska inuu iska iibsado. Markaan eegno dadkan kale othersigana waxa weeji not anymore waayo wax dee developer fara badan ma sameynayaan. Sababtoo ah waxa weeji haddii uu qof computer soo gato inuu casharo ka dhageysto, inuu casharo ka akhristo, inuu tutorialo fara badan ka dhageysto baa dhici karta. Laakiin muhiimiyaddeena ugu weyn waxa weeji waa intan maadaragtay student-ga. Marka haddii aan eri ardaygu ha iibsado computer rakhiisa, dadka kalena waxaanu nidhi depend on your business. Waxay ku xidhan tahay waxaad ku qabsanayso. Haya hadda waxaa hal su'aal oo kale labaad baa noo timiday. So now ask yourself. Waxay noqonaysaa markaad aragtay waxaan oo idil personal computer baad haddii aad rabto ama company haddii aad u shaqeynayso, haddii aad student tahay wixii laga rabo, haddii aad dadka kale tahayna waxyaalaha laga rabo. Marka waxay noqonaysaa markaan eegno so now ask yourself markaan nidhi which part you are.
waa inaad isweydiiso partigan ka hadlaya waxa weeji ma intan aduma student partiga tahay mise others partiga ayaa tahay. haddii aad tahay student partiga waxyaalaha laga rabo waan ka hadli doonaa. haddii aad tahay wax othersigana iyagana waan usoo diyaarin doonaa. haddii aad maadaragtay part of student haddii aad tahay waxaa laga rabaa after this you should have to know, waayo intan oo idil aan soo marnay waxaad sababtaad u rabto waa inaad garato. haddii aad tiraahdo application ma sameynaya waa inaad garato waxa laga rabo. haye inaad computerka aad soo gadato waxyaalaha muhiimka aan maadaragtay tala idiin bixinaya mise aan idiin sheegaya kow waxa weeji waa processorka, waa maskaxda dhane computerka inaad fahanto. qofka bini'aadankaba waxaan ku qiimeynaa aad buu maskaxdiisa u fiican tahay marka la yidhaahdo waxa la weydiiyey markuu ka jawaabo waa executionkiisa waxa uu soo bandhigay weeji. markaan ka hadlayno iyaga every single party oo waxay leeyihiin aan ka sheekayn doono processorkaas memoryga oo shakhsi ahaan gooniya maalin idil bay qaadanaysaa processorka. laakiin as a general markaad computerka aad iibsanayso waxyaalaha inaad muhiimka taqaano waxa ka mid ah kow processorka, laba memorygan ood u taqaano laba memory baa jirta, mid waa storage midna waa temporary memory. temporary memorygana waxa weeye sidii qof gacan fudfudud imika sida haddii aad wax qabanayso speedkaagu fiican yahay ood gacmo furfurad aad leedahay dhaqdhaqaaqaagu fiican yahay markaasoo kale bal memoryga ayaa fiican. memorygaasna waan ka hadli doonaa isagoo uu ka mid yahay ram loo yaqaano random access memory. marka waan ka sheekayn doonaa isagana maalin gooniyuu leeyahay. haddii aan sii wadno hard drive-ka ama waxa u taqaaniin HDD baa la yiraahdaa hard disk drive. marka kan waxa weeji waa shay aad u muhiim u ah, waa hard diskigii dhannaayay daatada meesha ku dhacaysay. ta koobaad aad lahayd inaan personal informationkayga ku save garaysto mise company informationkayga ku save garaysto meel kastoo idil waxay ku wada dhacayaan hard diskiga dhexdeeda. isagana maalin gooni ayuu leeyahay. hard diskigaaga intaad u baahan tahay waan ka wada hadli doonaa. computer wuxuu kaa rabaa inuu clarity fiican kuu soo saaro screenkaaga xitaa haddii aad programming haddaad tahay haddii aad maadaragtay othersiga tahay waxyaalaha uu kaa rabo inuu clarity fiican soo saaro uu kuu soo saaro waxaa ka mid a wax lagu dara ayaa jira graphics card baa la yidhahdaa. graphics cardigan baad u soo gadanaysaa kaas. marka xoogaha waan isagana maalin dhan baan ka sheekayn doonaa. shanaad iyadoo noo noqon doonto optical drive ama sida u taqaanaan cd diskigii cd driverkii taad u taqaanaan oo kala weeji. markaas inaad fahanto cd driverka kaad rabto isagana maalin dhan baan ka sheekayn doonaa. ta lixaad isagoo ah displayga monitorka ama laptopka screenkiisa sidaan isagana maalin dhan buu qaadan doonaa. kaan iibsan doono ma led ba ma lcd ba waxaasoo idilna waan ka sheekayn doonaa. toddoba waxa weeji hal shay oo aad u muhiim ah oo inta badanka aan ka tagno aan care aan siinayn laakiin ay very important noo tahay ana dee waqti badanka aan iska dhaafno aan u arkayn inay wax faa'iido u leeyahay. taasoo ay tahay USB-ga haddii aad iibsanayso computerka desktop hadduu yahay haddii uu yahay laptop ta muhiimka aad iyo aad u muhiim ah aanan u aragno inay fududahay waa USB-ga universal serial bus. isaga saad u taqaanaan USB flashka yaryaraa weeji internetka aan ku qoro
kan weji ama meesha uu galayo motherboardka dusheeda USB uu leeyahay. marka muhiimadeena waxa weji waa inaan ka hadalno USB-gan. USB-gu labo ayuu qaybtamaa, taasoo ta koobaad ay tahay USB device can operate at maximum 480 Mbps megabyte per second weji. waa daatada wuxuu kaga shaqaysiinaya mise uu xamili karo waa 480. waa high speed. marka aan niraano 3.0 device can operate maximize of 5 GB. halka GB waxa weji waa 1400. halka GB wuxuu noqonayaa intaas buu noqonayaa. halka GB megabyte per second. markaas haddii aad compare garayso kan iyo kan different weyn baa u dhaxeeya, isagana maalin baan ka sheekeyn doonaa. marka xitaa haddaad waqti xaadirkan intaan soo sii deynayo casharada kale inaad kasii faa'iido waxaa lagaa rabaa kow waa USB-gaas. so fiican iskaga eeg. waxaad markasta iibsataa ka 3.0ga, waayo isku mid maaha. daatada wuxuu mar quraata uu tuurayo mise uu upload garaysanayo waxa weji 480. marka adu speedkiisa markaan gaadhno waan ka sheekeyn doonaa insha Allah. markaan usoo jeesano ka 8aad isagoona ah backup media. computerkan aan imika dul fadhiyo hadduu in case hard disk ku jiro correct iga gaadho wax cilada haddii uu yeesho waxaan sameynaya ma laha, waayo daatadaydiina way lumaysaa. everything can happen. electronic wax kasta waa ka suurtooda inuu ku dhaco. marka waxaan sameynaynaa aad gadanaysaa wax la yiraahdo external hard disk. backup media waxay ka dhigan tahay waa external hard disk. ka kugu jiro waa internal hard disk. motherboardka ku dul taagan cable ka soo baxay motherboardka ee galaya isaga internal hard disk. kan kale externalka isaga banaanku sida kugu yaala waa kaad arkayso. insha Allah isagana maalin dhanbaan ka sheekeyn doonaa. ta 9aad iyadoo noo ah operating systemyada isagana maalin dhanbaan ka sheekeyn doonaa sida Windows 7 Windows XP ay ku noogu xigayso 7 8 8.1 10. intaas anagoo ka sheekeyn doonaa. operating systemka isagana maalin idil buu qaadanayaa insha Allah. casharkayaga maanta waa intaas buu noogu eegyahay, waayo waa inaad fahanto operating systemka kugu jira computerkaaga haddii cilad gaadho sidaad u xalin lahayd. waxaa lagaa rabaa intuu cilad kaa gaadhin horteed inaad backup ka iibsato. USB-gaas inaad si fiican u kala saarto. ilaa hadda haddaad soo iibsanayso USB 3.0 iibso xitaa aad u qaaliya isaga iibso, waayo speedkooga isku mid maaha. displaygana waan ka hadli doonaa. LED iyo LCD-gaas kaad iibsan doonto insha Allah iyagana waan ka hadli doonaa. marka disk driver-kana kaad iibsan doonto ma CD ba mise waa DVD. ka laga rabo kaad iibsan lahaydna isagana maalin baan ka sheekeyn doonaa. computer graph-kana waxa weji clarity-ga computerka buu aad clarity fiican buu soo saaraya haddii uu connect ku gashan yahay, laakiin especially waxa loo isticmaalaa for gaming. markaas isagana sidaaba loo isticmaalaa. markaan ka sheekeynayno hard diskigana waxa weji waa daatadayda meesha ku jirto. operating systemkeena meeshuu ku jiro. bootable fileka meesha uu kasoo kacayana waa hard diskigaas. markaan ka sheekeynayna ramka waxa weji waxyaalahan hadda aan qabanayno siduu computerku u shidan yahay
waxyaalaha activity-ga inta badan ka qaadanaya raamka weydi processorkana waa sida aad nii sheegay qofka bini'aadanka markaad qiimeynayso haddii uu activity-giisu fiican yahay maskax yaroo degan waxyaalahaad weydiinayso kaaga jawaabayo waxa weydi qofkaas waxaad leedahay waa maskax badan yahay maskaxda aad ku sheegayso computerkuna waa leeyahay isagoo loo yaqaano CPU Central Process Unit isagana waan ka sheekayn doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo magacaygu waa xasan ismaaciil maxamuud oona ka soo jeediyey iqra education program